madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyay shirka golaha wada tashiga qaranka oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin oo kamid yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir kaasi oo ka furmay maanta xarunta dalka looga taliyo ee Villa Soomaaliya. Shirkan oo socod doona muddo 2 maalmood ah waxa uu muhiim u yahay howlaha hortaminta u la howlgudashada hay'adaha dawladda federaalka iyada oo la abuurayo jawi isfahan iyo kalsooni ay madaxda heer qaran heer dawlad goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir isaga kaashadaan xal u helidda dhibaatooyinka amni ee dalka ka jira waabida masiibooyinka ka dhashay abaaraha dib u heshiisiinta bulshada qabyatirka dastuurka iyo ajendayaal kale oo muhiim ah. Cabdikariin Cali Kaaraf ayeenka madaxtooyada Soomaaliya ayaa warbaahinta u sharaxay ujeedka kulankan. Shirkan oo muddo 2 maalmood socon doona ayaa ka turjumaya hiigsiga Soomaali heshiis ah waxaana ujeedadiisu tahay in la abuuro kalsooni lagu wada shaqeeyo si loo dhameystiro howlaha horiyootabinta u leh dhameystirka dhismaha qarannimada Soomaaliyeed sida arrimaha amniga, dastuurka, federaaleynta, garsoorka iyo abaaraha. Waxaa shirka ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. Shirka oo bari dhamaan doona waxaa ka soo bixi doona warmurtiyeed ay si wada jira u soo saaraan madaxdii ka qayb gashay. Kulankan oo ah kiisii ugu horeeyay ee uu gudoomiye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana ay yeeshaan madaxda golaha wada tashiga qaranka waxa uu ku soo beegmay xilli muhiim u ah dalka.